Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa saddexda shimbirood oo ugu la yaabka badan caalamka. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarig. Muuqaalkan waxaynu kusoo gudbinayaa saddex shimbirood oo aragtidoodu naadir tahay. Sidaan u ogaano muuqaalkan inta xiisaynaysa noo dhaha subscribe, like iyo share. Shimbirkeena koowaad waxaa la dhahaa shimbirka markuus. Ma ahan shimbir muuqaal ahaan quruxsan, laakiin waxa uu leeyahay awoodo kale. Awoodihiisa waxaa ka mid ah wax liqidda. Waxa uu awoodaa shimbirkan inuu hal mar u liqo xabad kalluuna oo wada dhammaystiran. Cajiib. Marka u fiirsato shimbirkan, waxaa u moodaa shimbir tabar yar, laakiin maaha saa u mooday. Waxa uu awoodaa shimbirkan markuus weeyaan inuu cuno waxayna dhowr qof ayna cuni karin. Shimbirkan waxa uu awoodaa xawayaano ay adag tahay ugaarsigoodu. Waxa uuna cunaa shimbiraha yararka, kalluunka iyo xamaaratada kale. Shimbirkan waxaa laga helaa waqooyiga Zambia iyo koonfurta Suudaan. Shimbirkeena labaad waa shimbirka geesaha leh. Waxa uu leeyahay 2 geesood iyo sayn dheer. Waxaa intaa u sii dheer shimbirkan oo kale 4 lugood, meeshay shimbiraha kale ay ka leeyihiin 2 lugood. Markaanu baarnay shimbirkan oo aanu ka baarnay ilo lagu kalsoon yahay, waxaanu ogaanay shimbirkan inaana wax tafaasiil oo dheeraada aanan loo hayn. Haddaad shimbirka magaciisa aad garanaysid, daawade nagula wadaag xagga hoose ee kommentiga. Shimbirkeena ugu dambeeya waxaa la dhahaa baqbaqaa. Baqbaqaa Ubuma waa shimbir qoyska baqbaqaada ka mid ah, aana duuli karinna. Xajmigiisuna waa mid uu aad u weyn yahay, cimrigiisuna waa mid uu aad u dheer yahay. Wuxuu gaaraa cimri ahaan 60 sano ilaa 70 sano. Waxaana laga helaa jasiirad roobaadka ee waddanka New Zealand. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan asxaabtiina la wadaaga, laga yaabaa inay xiisaynayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.